بسم الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدق هذا خيارته أنا واه جرى صادق حسن بوه إن شاء الله تعالى. ما أنت نوحى شرح دونا عشركي أها BLC بروجرام. موضوع عشر كمان تقصين وحواي sensor BTC positive temperature coefficient. عشر كاسة مانتا ميسكنا صاران إن شاء الله تعالى سنسر اسكا بدينهين وحانا جرى مثل راح مركاسي RTD والله سو غابي مركا resistance temperature dilator. عشر كاسة وحان شرح دونا مركاسي BTC positive temperature coefficient يعني شرح دونا مركا مركا هره وحان شرح دونا هذا connection كيسة كتبنا وحان نقول دونا إن شاء الله تعالى diagram key مركان دمين وحان شرح دونا program key وكان هذا كان واي هذا connection key أو أها BTC جوا كان هذا كان واي رمزيان أم صمدنا أو جيتان واي حال كان وحان كيسنا مركا device كأم قلبيدا أو استعمالينه نكون واي BTC وكان واي كان هذا جدا واي أو حال كانت بتكان سنسر كان أو BTC الله مركزي هندرين temperature سنسر واي مشان وحوي فيلوين كي جلها أو connection كان قاب كله بحر الله وسيدتان فيلوين كان قاب كان له بحر مركب بتكان واريد كا أو عسان كا بتكان سدح فيله هل كان كجرته إذا سدح هذا connection أو هل كان سنسر له بحر مركب هذا connection كواسيدتان وارين diagram كانوا قدوين هاي كدب مركا output كي واي كان input كي محونا قناة مركا كون واي وهل كان كون وحواي output كي ده مكان وحواي input كي وحي قال لها output مركا ستر حواي مركا هل كان وحي مركا كيو كون أنا قناة مركا وحا هل كان يالا لو لودا نو تالو ميد كان وحواي fan كي واي ميد كان وحواي load كا أها لامبدي ميد كان وحواي connection كيسة AC voltage 220 voltage phase in neutral كي halkan aha kadib halkan waxa ka baxay marka hal looda ka baxayo laba lood aan dhahe midna waa kana doodi kan connection kan kala wuxuu noqonaa markaasi halkan ayaa lagu connection gareynaa marka wixii marka iska dhamaada marka BTC na waxa waaye voltage kiisu waxa waaye 224 voltage plus 24 voltage ground waa minus waaye connection kan ومد كان وحوي سيمنس كي BLC أها ومد كان هذا وحوي وحلا مركا connection هذا connection أو BTC إنتان وحوي إنتان input كي وحوي هل كان حصل قلوا 3 phase كي أو 3 line كي هل كان connection قرينا وسدح line كي أو إنتان كان وground وحوي إنتان وphase كي سدح line في هل كان سيسوق مركزي كدب مركا waxa ka baxay halkan output kii ah intaan phase in kii iyo neutral kii waxa waaye AC 220 voltage halkan marka Jontian halkan si toos waxa uu sameeyay marka loadkii gali midkan minus kii waaye kadib intaan waxa waaye loadkii kala halkan ka shidaa kan groundigi iyo waxa connection gareynay midkan ground connection gareynay markaas plus kan oo voltage kan oo inta ah لو حق connection قريني هل كان يا حق ورجيني مركا voltage وحق يديني مركا وإن كي واي إيش كذي voltage كا هل كان connection قريني هذا كده مركا حواي neutral كان حواي neutral كان هل كان لو حق دي مركا كمان كذي كده أنت عصواي وحي مركا connection كا similar كي وحاضر قل دونا إن شاء الله تعالى function diagram كي يعني قل دونا أو برنامج كيا برنامج كوا كنا هل كان ونسق عاي فيل تك مركز يو تك كدارة ليدر دايجرام وكان هذا البرنامج كوا ونسق عاي هل كان مركز كدارنا وحنسق بحي مركز وحن سمين دونا diagram key BLC أو BTC
positive temperature coefficient. waxaan leenahay marka halkan aan tagaynaa marka analog contacts kan tagaynaa halkan waxaan leenahay markaasi halkan nagu abuur waxaan leenahay 1 way kadib waxaan leenahay markaasi okay intay ku jiraan marka halkan way contacts ka halkan ay ku jiraan insha Allah guday doona insha Allah taala waa kan halkan analog waa kan halkan way kadib halkan ku kan halkan connection garay yana halkan connection garay kadib mid kala soo qaado oo analog kala soo qaado oo midkii labaad waaye waxa sababtay waxa waaye laba shay aan isticmaalayna marka dhow oo loodad ah kadib halkan joint garay halkan marka sound joint garayso wixii hadhow macnaa wixii time ki ama wixii waqtiyada ay shaqeyn doonaan hadhow aan ku sameyn doonaa marka hore aan wada sameeyno loadadka connector ka tag halkan ku dooro midkii koowaad waa analogii koowaad okay ده kadib waxaan soo qaadanaya marka relay coil key oo ah load key ama laambadii halkan ku soo qaad midkii labaad sameey marka laba load waaye midna waa fan ama ruuxadii midna waa loadkii waa connection kana sida taan waaye kadib marka midkan okay waxaan sameyn doonaa marka time setkii aan sameynaa marka halkan aan ku dhufanaa marka hore waxaan dooranaya marka voltage ka waxaa ka dhigaya marka temperature sensor ka voltage kiisu waa 10 voltage waa nf waxaa dhigaya marka inta halkan waxaa leedahay marka wax yara meesha waxaa ka sameynaya marka time kii minus waxaa dhigaya marka temperature ka wuxuu soo kacaya marka wuxuu noqonaa markaasi minus 20 midkii koowaad waa markaas waxaa leeyahay markaas minus 20 minus 20 halkan leedahay marka iska tir minus 20 ama 20 waxaa leedahay marka waxaa sameynaya marka minus 20 haddana ilaa waxaa geenaya marka meesha ay ku bilaabato oo minus 20 degree celsius ki ilaa 400 hala markaas ilaa 400 ay geey meesha ay tira marka waxaa leedahay markaasi 400 waa minus 20 kusoo kaca ilaa 400 degree celsius intaas soo gramaaday marka waxaa leedahay marka midkii koowaad waxaan siinaa markaasina wuxuu ku on gareynaa waa markuu 100 gaaro waa inuu ishidmaa waxaa leedahay markaasi 100 ay gaarsi waa time kan aad siinayso registration sameynayso marka 100 wuxuu ka damaa leedahay markaasi 100 oo ku daarmo ilaa 200 iyo konto ama 100 ilaa 200 na ku off garay jaamidkan uu ku dhamaaday mid kala tagay markaasi kana tagay marka asina isku midkii waa same as 10 voltage kii hala markaasi asina 20 minus 400 geesi 400
halka intay ka duunayaan hado intay xogaar different ka dhahayo oo xogaar waxa leeyahay markaas 250 meeqa ugu dhamaa marka doodi waa 280 85 ama iska siyam 5 milas 55 okay time kan dalwada meeyay waa mid kan waxa dhow waxa waaye mid kan waxa waaye ii sheegay waxa leeyahay markaas loadkii u bixi markaas kan kala dhow wuxuu noqonaa markaas fan ama ruuxadii soo kala ogaano marka oo ku dhamaaday wixii diagram wixii waxa sameysay marka waxa siisay registration siisay lambarada wixii ay ka kacayaan wixii ku damayaan wuxuu ku bilaawanayo sensorkii oo BT oo positive temperature coefficient-iga ahaa kadibna marka waxa sameynay marka load waxaan meesha ka haysanay laba load aan ka haysanay midna waa fan ama maruuxadii waa tanaa midna waxa waaye lambadii markaasi aan kula adeegsan doonaa insha Allah waa isla load waa magac ahaan guud waa load way kadib marka maxaan u kala bixinay markaasi maruuxadii iyo lambadii ama nalkii kadib marka ay saa hadeer wixii noogu dhamaadaan waxaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala simulation aan sameynaa marka wixii simulation aan sameynaa insha Allah ta'ala waa kan hadeer halkan aan tagaa marka waxaan leeyahay marka simulation ida okay hadeer waa ku diyaarsan yahay simulation ku yahay marka simulation kan waxaan sameyn doonaa marka halkan aan tageynaa markaas halkan aan ku dhufanayna marka halkan markaan ku dhufano waxaan leenahay marka soo wadno markuu 100 gaaro waa temperature-ka sensorka markuu 100 degree Celsius markuu gaaro waa inuu ishid ma markaas ana siinay marka hore ana soo register gareynay kadib marka uu ku shid ma markaasi okay bismillah aan bilaabo marka waa socodsiin doonaa marka hadeer wuxuu ku bilaabtaa marka -20 degree Celsius ilaa 400 degree Celsius okay marka aan wadno marka halkaan fiiri meeshaan hada waxa way 9 wuxuu noqonaa marka 50 3 waa kana 60 60 waa kana mid kan sam ilaa adi 100 marka gaaris inuu ku shidmaa loadka loadka inta xawaar saan ku aragno waa ka saan yeelna markaasi waa labada load ja already waa ujeedna hadda inta noogu dareemi kartaa marka mid kan intana ku fiiri halkan fiiri asaan ay soo noqon halkan hadeer waxaan maroonaa marka 97 ayaa maroonaa hadeer waa kana 100 markuu soo gaaro waa kana hadeer 99 ayaa maroonaa mugtahay markaan wax yar ku darno jawaab 100 markaan soo gaarno uu shidmaa marka waa kana jawaab shidmay wuxuu ku shidmay waa 100 uu ku shidmay waxa rabaa inaan ku afgareeyo 200 markuu gaaro oo temperature markuu lago si dhaafo waa loadku inuu damaa ay 200 aan si gaarsiin markaasi okay wixii aan si socodana marka hadeer ilaa 200 aan si gaarsiin 200 iyo waa kana ilaa 60 waa kana 200 markuu gaaro oo inuu isbaqtiisiya ama uu damaa waxa uu maray hadeer 199 uu maray hadeer fiir markaan wax yar dhaqaajino 200 markuu gaaro oo si damaa marka loadku waa kana hadeer waa baqti waa dam sida tan kadib hadana waxa si bilaawanayo fanti waxa leeyahay marka idana haday gaarto 250 waa inay maruuxadii ishidantaa had degree markuu 250 si gaaro automatic ahaan maruuxadii in waxa rabaa inay maruuxad inay ishidanto maruuxadii hadeer galina markaas waa 250 waa kana fiiri 250 247 waa 250 time fixed keeda 250 already iska markii automatic programka waa ka programisay automatic ahaan asaas shiday markaas program okay waxaan rabaa marka 285 markuu gaarano waa maruuxadii waa inay isbaqtisiisa ama inay dantaa okay waxaan leeyahay marka 200 iyo intaan 261 waadar waa 3 waa kana iska markii adeer waxa waa 283 wax yar markaan soo dhaqaajiyo waa kana maruuxadii way dantay asxaabta runtii waa cashir aad u muhiimsan waxa la cashirkan BTC
loo soo gaabiyay marka lahay markaasay positive temperature coefficient waa cashirkii 13aad maanta aan qaadanayna BLC cashiradii taxana ahaa ilaa cashirkii koowaad ilaa waxaan sii marnaa marka cashirkii 13aad waa serial aan ku soconaa marka cashiradu waa taxana waaye waa bilowga waa basic ilaa waxa waa maanta waxaan joognaa dhamaadaan joognaabo cashirkii maanta waxaan qaadanay 13aad ilaa dhowr cashir aan ku soo dardoona insha Allah ta'ala hadduu eebeedmo asxaabta sharafta leh markasta waxaan idinka codsan doonaa insha Allah ta'ala inaan like iyo share iyo comment oo dhiirigelin nagu soo baxstaan insha Allah wax alaal waxa ugu baahantaan BLC programka runtii cashirooyinka BLC programka way soo gelin doonaa insha Allah ta'ala hadba codsiina ayaan tixgelin doonaa sidoo marka ugu macquulsan waxaan idinka codsanaa markasta channelkeena Somali Touch Lab waxaan dhigi karaa channelka ugu horeeyay oo luqadda afka hooyo oo ka baxo BLC programka waa runtii waa nasiib waaye channelkan oo Somali Touch Lab waa qof kasta oo Soomaali ah ama muwaadin oo Soomaali ah runtii wuxuu ku fahmi karaa afkiisa hooyo ayaa wax lagu sharxaa runtii kaliya kuma jiraan channelkan BLC maaha waa channel electrical electronic engineering ah qayb kasta ku xisaabsan haday ahaan lahayd solution key electrical electronic haday ahaan lahayd iyo hadii program ahaan lahayd dhan waa booqan doontaa booqo Somali Touch Lab qor kadib YouTube-ka marka dhax istaan tahay waxa arkay every man waxa waaye oo electrical electronic engineering khuseeyo ayaa halkaas ku daawan doonta ama ku arki doonta insha Allah ta'ala runtii waa nasiib marka labaad waa nasiib in macnaha waxa waaye luqadaada afkaaga hooyo in lagu sharxo maadooyinka khuseeyo oo technology-da runtii idan waxa waaye waxyaala maanta muhiimad waaye runtii ka faa'iideyso booqo cilmiga runtii wuxuu dhex yaalaa markasta YouTube-ka baahida maanta waxa waaye aan aragnay bulshada inay u baahan tahay in lagu faa'iideeyo sababtoo waxa waaye badanaa marka YouTube-ka dhex istaagan tahay waxa arki doontaa luqadaha ajaanibka sida Ingiriiska iyo Carabiga badanaa qofka muwaadinka Soomaali ah runtii hadduu rabo inuu macnaa luqadiisa inuu wax ka fahmo dhibaato iyadoo ku sii noqon doontaa laakiin hadda waxa waaye luqadaada hooyo ay wax dhan ku diyaarsan yihiin insha Allah ta'ala waa sii wadi doonaa hadduu eebidmo haday naftu nagu jirto waxaan baahida bulshada Soomaali waxaan rabnaa inaan tirno insha Allah ta'ala anigu markasta waxaan joognaa inaan dadkeena inaan waxa waaye inaan u shaqeyno insha Allah idinkana waxaan idinka baahanahay commentiina share like iyo subscribe inoo saara nala wadaaga asxaabta والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.